injiilka sida Yooxana u qoray cutubka 2 maalintii saddexaad waxa kaana tii Galili jiray aroos Ciise hooyadiisna halkaasay joogtay waxaana arooska loogu yeedhay Ciise iyo hartiisii markii khamrigu dhammaaday Ciise hooyadiis waxay isaga ku tiri khamri ma ay qabaan markaasaa Ciise wuxuu iyada ku yidhi islaan yahay aniga iyo adiga maxaa inoo dhaxeeya saacadaydu weli ma iman kolkaasaa hooyadiis waxay midiidinyadii ku tiri wax kastoo idinku yidhaahdo yeela meeshaas waxaa yidhi 6 ashuun oo dhagaxa oo loo dhigay caadada yuhuudda oo daahirinta mid kastaana wuxuu qaadi jiray qiyaas 2 ama 3 metri tas markaasaa Ciise wuxuu ku yidhi ashuumada biyo ka buuxiya goortaasay buuxiyeen ilaa girgirka kolkaasuu wuxuu ku yidhi ka soo dhura oo u geeya kamiiska arooska madaxda wayna u geeyeen kii madaxda ahaa markuu dhadhamiyey biyihii khamriga noqday ma uu ogeyn meel ay ka yimaadeen laakiin mididiyadii oo soo dhuray way ogaayeen markaasaa kii madaxda ahaa u yeedhay ninkii arooska ahaa oo ku yidhi nin kasta marka hore wuxuu soo saaraa khamriga wanaagsan oo markay u cabbaan siday doonayaan dabadeedna ayuu keenaa kan liita adiguse khamriga wanaagsan ilaa haddeer ayaa dib u dhigtay calaamooyinka Ciise tii ugu horeysay waxay ahayd tan uu ku sameeyey kaana tii Galili oo wuxuu ku muujiyey ammaantiisii hertiisiina way rumaysteen waxaas dabadeed wuxuu tegey Kafarnaum waxaana la socday hooyadiis iyo walaalihiis iyo hertiisii oo maalmo aan badnayn ayay meeshaas joogeen iidii kormaridda oo yuhuudda waa dhoweyd oo Ciisena wuxuu u kacay Yeruusaalem wuxuu macbudka ku arkay kuwa ku iibiya dibiyo iyo ido iyo qooleeyo iyo kuwa fadhiya oo lacagta bedbedelaya markaasuu xarko karbaash ka sameeyey kulligoodna ayuu macbudka ka eriyey dibiyada iyo idaha labadaba lacagtiina wuu ka daadiyey kuwii bedbedelayay miisaskoodiina wuu rogay kuwii qooleeyaha iibinayeyna wuxuu ku yidhi waxyaalahan halkan ka qaada guriga aabbahay ha ka dhigina guri baayac mushtari xeertiisii waxay xasuusteen in la qoray qiiradan gurigaaga u qabo waa igubaysaa sidaa aawadeed yuhuuddu waa u jawaabtay oo ku tidhi isaga calaamadee baadna tusaysaa waxaad waxyaalahaas u samayso Ciisena waa u jawaabay oo ku yidhi macbudkan dumiya oo 3 maalmood dabadeed ayaan kicin doonaa yuhuuddu haddaba waxay yidhaahdeen 46 sannadood ayaa macbudkan la dhisayey adiguna ma waxaad ku kicinaysaa 3 maalmood isaguse wuxuu ka hadlayay macbudka jidhkiisa sidaa aawadeed markuu ka soo sare kacay kuwii dhintay hertiisii way soo xasuusteen inuu taas ka hadlay wayna rumaysteen qorniinka iyo hadalkii Ciise yidhi markaasuu Yeruusaalem joogay waqtigii iidii kormaridda dad badan ayaa magaciisa rumaystay markay arkeen calaamooyinkuu sameeyey laakiin Ciise qudhiisu iskuma hadlayn iyaga waayo dadka oo dhan ayuu yiqiin oo uma baahnayn in laga marag furo dadka waayo isaga qudhiisu waa yiqiin waxa dadka ku jira